halkan waa channelkina xulashada wararka saaxiibada loo diyaargaroob inaad daabataan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararka ugu waaweyn waqtigan waxa kamid ah xog buuxda waxaan kaga hayaa beesha caalamka Axmed Madoobe mar kale ka dalbatay inuu qabto doorasho dadka ay ku wada qanacsan yihiin ciidamada Axmed Madoobe Kismaayo ku sugan oo bilaabay in guriga ay kala baxaan dhalinyaro loo arkay liddi ku yihiin maamulka dowladda Soomaaliya war ka soo saartay hadalkii safiirka Mareykanka ee Kenya ee ku saabsan kiiska badda ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya laga soo badbaadiyay badda kadib dooni ay la socdeen ku dagtay xeebta magaalada Marka weerar kooxda al-shabaab ee qorsheynaya inay la beegsadaan Uhuru Kenyatta oo fashilmay dowladda Soomaaliya oo bilaabaysa barnaamij lidduka warbaahinta madaxa bannaan iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada maanta ka soconaya Hiiraan gaar ahaan u dhaxay kooxda macawisleeda iyo ururka al-shabaab qodobadaasi kuba kale ayaa saaxiibada wararkeena maanta aad ku daawo doontaan ee u diyaar garooba kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhah gambareelkana taabo si ay mar walba kugu soo dhacaan wararka iyo waliba warbixinada gaarka ee halkan aan soo gelino warbixinta ugu horeysa maanta xog ku saabsan beesha caalamka ee Axmed Madoobe waxay ka dalbadeen in doorasho cusub la qabto si ay u wada qancaan dhammaanba dhinacyada quseeya arintan ila wareedda lagu kalsoonaan karaya madaxtooyada magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose janaalkeena u sheegay in xubno kamid ah beesha caalamka ay si toos ah u waceen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kala hadleen doorashada in mar kale lagu celiyo ee ka dhacday Kismaayo xubnahan aan warkan ka soo xigin ayaa waxa ay sheegeen in Axmed Madoobe laga dalbaday in uu hogaansamo doorashada kale ee lagu qabto magaalada Kismaayo isla markaana ay goobjoog ka noqdaan dowladda Soomaaliya beesha caalamka si loo xaliyo tabashada jirta iyo waliba qalalaasaha ka dhashay doorashada asagoo ku soo baxay sidoo kale xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa la hadlay xidig iyo seeraar oo labada nin ee dowladdu sida weyn u taageersanta Axmed Madoobe ka soo horjeedo waliba dowladda Soomaaliya lagu xaqliyay inay aad u taageersiin waxayna sheegeen inay aqbali doonaan haddii mar kale doorasho ku celisa ay ka dhici doonto magaalada Kismaayo ayna yihiin musharax u tartamaya arintan xubnaha warkan ka soo xiginay waxay sheegayaan in Axmed Madoobe laga dalbaday inuu u hogaansamo doorashada kale ee la qorsheenay in halka lagu qabto sidoo kale xubnaha ka tirsan beesha caalamka ayaa la hadlay xidigii seeraar ayaguna ka dalbaday in la joojiyo qalalaasaha foodada ay magaalada ay ka wadaan dadka Axmed Madoobe la hadlay waxa kamid ahaa safiirka qaramada Midowday oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Sweden iyo waliba wakiil ka socda Midowga Yurub iyo waliba dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya dhammaan kuwaas ayaa markan cadaadis ku saaraya in Axmed Madoobe uu muujiyo tanaadul siyaasadeed xilli Axmed Madoobe magaalada Kismaayo lagu caleemo saaray waxaa loo sheegay in beesha caalamka ay taageersan tahay deganaanshaha Jubbaland isla markaana aysan aqoonsaneen doorashadii ka dhacday Kismaayo ilaa iyo xubno kamid ah in doorashadaas ay goobjoog ka noqdaan oo ka socda dowladda Soomaaliya ayuu yiri sarkaal ka tirsan madaxtooyada maamulka Jubbaland oo si qarsoodi ah channelkina ula hadlay lama oga sida uu Axmed Madoobe ku ogolaan doono doorashada kale ee ka dhici karta deegaanada Jubbaland waxaana maalmaha soo socda la filayaa in dalka Kenya isla markaana halka uu aado madaxweynaha Jubbaland si halka uu kala soo kulmo mas'uuliyiin ka tirsan Kenya inkastoo aysan jirin warar kale oo inkastoo aysan xaqiijin wararkan ayaa haddana warar kale soo baxay waxay sheegeen safiirka Kenya uu ka baaqday safar uu qorsheeyay inuu ku tago magaalada Kismaayo si halka uu kala kulmo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe go'aanka beesha caalamka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale beesha caalamka ay ugu digtay dowladda Soomaaliya in doorasho ay ku qabato gobolka Gado ama meel ka baxsan ee magaalada Kismaayo taasoo dowladda Soomaaliya u hogaansatay marka loo eego amarka dowladda qorshaha dowladda ayaa ahaa in lagu qabto doorasho ka madax bannaan tii ka dhacday Kismaayo meel ka mid ah gobolka Gado hase yeeshee cadaadis beesha caalamka ay saareen ayaa keentay in dowladdu ay ka tanaasulaan qorshe doorasho oo lagu qaban rabay magaalada Baardheer ee caasimadda gobolka Gado laakiin ilaa xogaal ay channelkeen waxay u sheegeen in markan cadaadis weyn la saaray Axmed Madoobe taasoo ka dhigan inuu u hogaansami doono amarka beesha caalamka isla Kismaayo wararka intaan ka bixin ciidamo hubeysan ayaa bilaabay in guryaha magaalada Kismaayo kala baxaan dhalinyaro loo arkay in liddi ku yihiin amniga magaalada waxa faahfaahin dheeraad ay ka soo baxeen howlgal qorsheysan ciidanka Jubbaland ay shalay ilaa iyo xalay ka sameeyeen qaybo kamid ah xaafadda Caliley ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ciidamada booliiska nabad sugidda Jubbaland oo ka jawaabay dilalkii labada habeen ka hor ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxa ciidanka nabad sugiddu ay xirxireen dhalinyaro badan laba habeen ka hor ayaa magaalada waxa lagu dilay nin ganacsato sidoo kale kamid ah nabadoonada magaalada oo lagu magacaabo Saciid Ciise Cabdi Adam ayaa gacantay ku soo dhigeen ciidanka booliiska kuwa nabad sugidda dhalinyaro badan oo xalay guriyuhu ay kala soo baxeen labada ciidan ee dhalinyarada ah ayaa ula dhaqaaqay xarumaha hay'adaha ammaanka ee magaalada Kismaayo halkaas su'aal ku weydiinayeen tiro dhalinyaro ah ay guryaha ay kala baxeen wararka waxa ay sheegeen ciidanka Jubbaland ay dib xorriyadooda u siiyeen dhalinyarada qaarkood kuwana wali su'aal weydiinay ku socoto inuu ku sugeen xarumaha ciidanka
cabdinuur maxamed ibraahim xasan oo afayeenka wasaaradda amniga jubbaland la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in howlgalka dhalinyarada lagu soo qabqabtay oo ah mid qorsheysan. afayeenka waxa uu sheegay in dadkaasi ay soo galeen tuhno dhanka amniga ah ee ku aadan, asagoo intaa ku xusay in baaritaan lagu sameey doono. waxa uu sheegay inay jiraan xubno si gaar ah loo farmuuqay kuwaas oo ciidanku ay soo qabteen. afayeenka ayaa qiray inaysan jirin dhalinyaro kale oo ciidanku ay ula kaceen qaab ka baxsan dhanka bini'aadanimada ah. cabdinuur ayaa laamaha amniga ka codsaday in si degdega sharciga u horkeenaan kuwii ka dambeeyay dilka Saciid Ciise Cabdi oo ka mid ahaa nabadoonnada magaalada Kismaayo. dilka ayaa carra ka dhalatay waxa ay qayb ka noqotay banaanbaxyo waaweyn oo shalay ka dhacay magaalada, taasoo ugu dambeyn ciidanka Jubbaland ayna qudhoolay kaga jawaabeen rasaas lagu kala eriyay. nabadoonka la dilay ayaa waxa uu ka mid ah nabadoonnada sida waaweyn loogu yaqiinay magaalada Kismaayo, taasoo keentay in dadku ay ka banaanbaxaan. wali wararkan ayaa daawaneysaan saaxiibayaal, warar kale oo muhiim ah ayaa inoo soo socda oo qayb ka ah. hase yeeshee aan ka hormaro warka ka soo yeeray dowladda Soomaaliya oo ay beenisay in Muqdisho uusan imaan safiirka Mareykanka, sidoo kalena aan laga wada hadlin arrinta kiiska badda. dowladda Soomaaliya waxay beenisay in safiirka Mareykanka u jeega Kenya inuusan Muqdisho imaan uusan la kulmin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, uusan kala hadlin arrinta ku saabsan kiiska badda ee horyaala maxkamadda caalamiga ICJ. Nicholas Market oo wareysi siinaya wargeyska Daily Nation ka soo baxa wadankaasi Kenya magaalada Nairobi waxa uu shacab ka qaaday in madaxweynaha magaalada Muqdisho kuna cadaadiyay madaxweyne Farmaajo inuu kiiska badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda. arrintan waa in si degdeg ah loo xaliyaa. waxaa muddo ka shaqeynayna in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka, ayuu yiri safiirka Mareykanka ee Kenya u jeega. waxaan tagay magaalada Muqdisho si aan ula hadlo madaxweynaha Soomaaliya, waxaan u sheegay inuu ka laabto kiiska maxkamadda, ayuu yiri safiirka wareysi siinayay wargeyska Daily Nation ka soo baxa Kenya. si kastaba haatee safiirka Soomaaliya Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa beeniyay in safiirka uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo Tarsan uu qiray in safiirka uu yimid magaalada Muqdisho. ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa inuusan dhicin kulan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Mareykanka ee Kenya xilli uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho dhowr bil ka hor, ayuu yiri Tarsan oo qoraalkan uu ku daabacay bartiisa Facebook. wargeyska Kenyaanka ah waxa uu qoray warbixinta lagu baahiyay warbaahinta gudaha waa been abuur, ayuu sii raaciyay qoraalka Facebookiisa ku daabacay mudane Tarsan ma uusan shaacin cidda uu Muqdisho kula kulmay safiirka Mareykanka haddii aysan ahayn ama haddii uusan la kulmin madaxda dowladda. waxaa sidoo kale isweydiin mudan sababta ay dowladda federaalka ay u qarisay qorshaha safarka ee safiirka Mareykanka balse hadda uu soo shaacbaxay. dad badan ayaa qaba in dhibaatada ugu weyn iyo walaaca shacabka Soomaaliyeed ay ka haysto kiiska badda ay tahay aamusnaanta iyo hufnaan la'aanta dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaaliya inta badan si toos ah kagama hadasho arrimaha kiiska dacwadda badda, taasoo walaac badan ay ka keeneen xubno badan oo siyaasiyiin oo ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo waliba Yuusuf Garaad. aan u gudubno qodobada kale. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxa laga soo badbaadiyay xeebta gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dooni ay la socdeen oo la degtay. faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa dooni ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa badda Soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay ku qalimintay agagaarka xeebta degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. doonidan oo ahayd nooca dheereysa oo ku ciladooday meel qiyaasii 60 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Cadalle. wararka ayaa sheegay in dhammaanba la soo badbaadiyay ciidamadii saarna doonida kadibna qayladaan ay u direen howlgalka badda midowga Yurub kuwaas oo soo gurmaday ciidanka doonidu ay kula qalimantay gudaha xeebta. war ka soo baxay howlgalka Atlanta waxa lagu sheegay inay gurmad degdeg ay u fidiyeen ciidankan oo gaaraya ilaa 7 askari, isla markaana la soo badbaadiyay dhammaan askarta. sidoo kale midowga Yurub oo baahiyay sawirada askarta ayaa tilmaamay in xilliga ay halis ugu jireen in noloshooda ay waayaan kadib markii ay quustay doonida ay saarnaayeen. ma jirto ilaa hadda wax hadal ka soo baxay dhinacyada dowladda gaar ahaan taliska militariga Soomaaliya ku saabsan askartan laga soo badbaadiyay xeebta ee doonida la degtay. dhawaan ayaa ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa 14 Oktoobar dooni ay kula degtay nawaaxiga xeebaha magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaasi, inkastoo la soo badbaadiyay taliyaha iyo waliba dhowr ka mid ah saraakiisha ciidanka oo doonidani saarnaa. hagaag wali wararkan ayaa daawanaysan.
qodobo kale oo muhiim ah ayaa inoo soo socda oo waxaa qayb ka ah dagaalo ka dhacay gobolka Shabeellaha waa dagaal ka dhacay Hiiraan ayaan eegi doonaa oo kooxda macawisleyda iyo waliba ciidanka al-shabaab maanta halka ku dagaalamay wararkii ugu dambeeyay dagaalada ayaan soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray gobolka Hiiraan waxay sheegayeen ciidamo ka tirsan kooxda macawisleyda iyo waliba al-shabaab in saaka ay ku dagaalameen inta u dhaxaysa magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buulaburti ee gobolka Hiiraan dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxdan macawisleyda oo hubeysan ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka ay ku lahaayeen waa saldhig ururka al-shabaab ay ku lahaayeen meel dhowr kiiloomitir u jirta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ilaa hadda wali xog badan lagama hayo qasaaraha ka dhashay laakiin tiro dhowr jeer hore ayaa al-shabaab iyo waliba ciidanka kooxda macawisleyda oo taageero ka helaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku dagaalameen deegaano badan oo hoos gobolka Hiiraan kooxdan macawisleyda ayaa ka dhisan gobolada Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe waxaana inta badan ay la dagaalamaan ururka al-shabaab dagaalada ugu badan ayaa waxa uu ka dhacaa gobolka Hiiraan gaar ahaan inta u dhaxaysa Buulaburti iyo Jalalaqsi oo meelaha ugu badan ay ku dagaalamaan sarkaal kamid ah kooxdan macawisleyda oo la hadlay janaalkan waxa uu sheegay in waa berigii hore ee saakay ay weerar ku qaadeen saldhig ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada Balibusle oo qiyaastii dhowr kiiloomitir degmada Jalalaqsi kaga beegan waqooyiga magaalada wuxuuna sheegay in weerarka uu ahaa mid qorsheysan ciidankuna ay bartilmaameedsanayeen sarkaalkan la hadlay ma uusan sheegin wax qasaaro xaqooda ka soo gaaray dagaalkan oo wali ka socda qaybo kamid ah gobolka Hiiraan ayaa la isku adeegsanaa hubka noociisa kala duwan sidoo kale wararka ayaa inta ku daraya in dagaalka ay ku biireen ciidanka dowladda Soomaaliya gurmad ahaan ka baxay kuwaas oo ka baxay degmada Buulaburti ee gobolka Hiiraan ma cadda ilaa hadda qasaaraha ka dhashay xaalad ayaana kacsan muddooyinkii dambe Hiiraan waxa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kooxdan macawisleyda ciidanka militariga Soomaaliya ay halka ay ka wadeen kooxdan ayaa waxay dhowr mar hore sheegteen in ay joogtayeen weerarada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho iyo kuliya oo weerarada ay kula bartilmaameedsanayeen ururka al-shabaab ay ka wadaan gobolada Soomaaliya warbixinta ay ugu dambeysay guud ahaan wararkii aad ka daawareysaan channelkina xulashada wararkan saaxiib halka ayaan ku soo gabagabeynaya warkan kan xiga daawadayaal intaan ku kulmi doono nabadgelyo